munaasabada dhagaxadhiga cisbitaal cusub oo loogu magac daray iska wax u qabso ayaa ka qabsoontay degmada Boon ee gobolka Salal. munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa ahayd mid kulmisay mas'uuliin kala duwan oo ka socota gobolada Awdal iyo Salal, xildhibaano hore kuwa hadda xilka haya iyo kuwa u taaganba iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay bulshada ku dhaqan degmada Boon ee gobolka Salal. munaasabadani ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Sakariye Abiib Aw Aadan, agas xildhibaan Roble Xasan Wacays iyo Suldaan Muuse Cilmi Dugsiye, Caaqil Cabdi Axmed Ciga Salsal. waxayna sheegeen rabnaa haddii alla idmo in dhakhtarkaasi uu noqdo dhakhtar laga soo wada qayb galo. dhakhtarkan waxaa loo dhisayaa shacbi weynaha degmada Boon ee kala duwan. anta waxa la inoo dhagax dhigayaa haddaan ay degmada Boon oo la dhagax dhigayaa dhakhtarkii degmada Boon ee intaasoo dhani insha Allah waan leenahay inay ka faa'iideysataan soo hadal qaadnay ama gudoomiyaha degmaduba sheegay. Boon way ku khasban tahay meeshay doontaba ha joogtee inay ka qaybgasho oo dhisato si xeerkuna xeerna way leedahay iska wax u qabsato. dhakhtarka halka ka ana qaaday maanta la dhagax dhigayo contributionkiisii inaanu diyaar u nahay dadkana aynu u sheegayno aanan dhisayno intaana waan ballan qaadayaa inaan ka qayb gali doono dhakhtarka على قفنا قيب قلي دونو وحنا رجينا يا ما دام دقاق كنت هي بالي يقول حاجه نروح جوجنا انا كسو قيب قلال يا لفتودي تاسا يغنا خريق الله كينو نيكا كينا ياينا ومحان كولي محمود حسن سعد ووزيرك انا او دشاي بون isaga keenaya biyana maanta isaga keenaya sayli aduu baanbadii galiyay ninka adeeru roob la sheegay labada nin waxa wadaane sayli aduu baanbadii galiyay aqalka oo dumarku ku maydhaan isna waa inuu riigi keenaa aduu kaay wax noqdo magaaladu ka cabaysay war arrinka meesha ma leeyahay waxa loo baahan yahay dadka dadaalaya dibadana in bagaraysa dhiyadooda la dhiso, weel loo sameeyo, ankood loo furo, guddi la sameeyo, guddigaasi ay yeelato wacyigeli dadka wacyigeliya, kuwa ururiya, kuwa saxiixayaal ankoodka sameeya lacagta saxiixa inay yeelataa loo baahan yahay. hadaan iska wax u qabso dhakhtarna lagu dhiso loo baahan yahay in kaana sidii odaydii ugu soo horeeyay sheegeen waxaan ballan qaadayna hadii la haydmo anagoo reeboona muruq iyo madaan ku ogaa wixii ku dhismay tan oo ka sii isagoo fudud buu dhismayaa waanu ka qayb galaynaa ka hawl galaynaa contribution personal bixinayna anagoo xitaa shaqeyn oo hawlgaba maanta oo ay caasimada waxaan leeyahay Boon ay isku tashato iyadoo haasha shabta Boon marka iyadoo tashato iyadoo xaqabsato iyo ummadda kale ilaahay waxay ku bixi kartaa ama inaka ama neefka boor ama laga qaadayo cashuurtiisa Boon la keenay maayo ma been mar isku sheegayna no lama keenay laakiin maxaa xaq waxana loogu leeyahay waan garanaynaa laakiin kolkaad inigu wax qabataan ee aad cashuurtiina soo saartaan eedna soo hor dhigtaan annaguna waxaan ku tari karno waa ku taraynaa waanu ka qayb galnay marka tanna waanu ka qayb galaynaa laakiin waa idin eegaynaa horta runta idin sheegaya hadhow waxba yaan la isku raacin bonkii kalow ee caafimaadka haayow soo diyaar galoobo goobta health center-ka wax badan uga qabanay alxamdulillah inaan dhakhtarkana wax badan uga qaban doono intaas waa hawraarsan haddaan ahay sidaan la soo sheegay Abubakar Siciid Cali oo insha Allah taala u taagan musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Awdal waxay ka mid noqon doontaa asaasigiina waxyaalaha magaranaysa baahiyaadka asaasiga waxyaalaha insha Allah taala aan matali doono ay noqon doonto inaan ka soo jawaabi doono insha Allah taala anu waxaan nooran lahaa musharax baan ahay u taagan golaha deegaanka
ee degmada boorama waxaan bedeli doonaa fikirka haddii aad codkiinna i siisaan oo aan ku guulaysto musharaxnimada wax fikirkaa waan bedeli doonaa waxaan ku bedeli doonaa inaan u raadiyo boqolkiiba 60 aan ka raadiyo xukuumadda somalilan guntii iyo gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal mustafa muumin cumar iyo barsaar ku-xigeenka gobolka salal cabdirashiid macaane annagu waxaan diyaar u nahay dhammaystirka iyo bilowga iyo sii wadiddaba inayna marnaba wasaaraddu ka maqnaanayn haddii ilaahay yidhaahdo wax kasta oo ku soo hagaaga tiimamka kala duwan ee wada shaqaynta leenahayna sida ay hore iyaguna uga dhawaajiyeen inaan ka qayb qaadanno hawshaa sidii si mugle oo miisaan leh loo wadi lahaa aniguna aan noqonayo qofka labaad ee bixinaya isla maantada wixii loogu talagalay ee aan karo inaan halkan ka bixiyo waa Ismaaciil Aare TV-ga madaxa bannaan Rayo Boorama.